طبعا المحكمان marka ay Zakariya aadan tiray generaalka sheegtay ku qaldantayba heerar ku samaysay gabadhu inta laga bogsido wax ka jiraan maaha ciidankeena in la niijibiyo maaha waa ciidanka ciidamada ugu sharaf badan caalamka waa ciidan difaac ku jira waxa kale jira waxaan maanta hambalyeynaa oo aad u hambalyeyn soo dhaweynaa ururka raacal sadiix ee la yiraahdo AGCD ururka asaasoonka de Jean Chateau d'Or yani kana hambalyeynaa ururkaas yar waa urur sharciyeysan waa urur shaqadoodii si fiican u gutay ururkaas markuu shaqadiisii si fiican u gutayna waxa shalay la gudoonsiyay oo abaal mariyay ay u abaal marisay Union Europeanka iyo IGAD kan u abaal mariyeen gaari Nissan Petrola ay ku shaqeeyaan oo loo dhiibay faraha laga geliyay Suleiman Elmi Brizaga ururka asaasoonka Al-Sabiix iyo adjuwangiisi gaarigaas oo loo siiyay gargaar si ay ugu shaqeeyaan wadannimada gobolka ay ka wadaan donc kuwaas gaariga maxaa loo siiyay in la isweydiiyo waxa loo siiyay tolmeen loo siiyay oranday Union Europeanka matal bulan noqday maydi way dadaaleen ninkii dadaalaba uu helaade dadaala ajaabas u gaadha una dhaafaabay marka aan laga daayaan baashan beenta la gurayo waxa kale jira ururkaasi shaqooyin aad u fara badan bay ka qabtaan Al-Sabiix waxa looga baahan yahay urur kasta oo Djibouti jooga oo sida u dadaalena in la siinayo abaal marintooda marka waxa kale oo hambalyeynaa gabadhii Deeqa Xad Maxamuud oo kontineerkeygii u yimiday hawsheediina iyadii wasiirka caafimaadka ay wargeli doonaan haddii la yiraahdo iyadoo hambalyeynaa iyo dadkii la shaqeeyay ee soo dhaweeyayna waa hambalyeynaa ee logistiga ahaa waxa leenahay inkuna hawsha xagga ka sii wada dalkeenu horumar markuu socdo in dibna loo soo celiyo maaha wararka beenta ana inaan qaadano horta maaha waa fuu wararkan loo gurayo waxa la rabaa khalkhal in la geliyo security wadanka waxa laga hadlo kale Fatiya Bukaa waxa ka hadashay arinta dumeera armigu waxay bulshada qaataan 17 milyan in ka badan bulshada u badan iyaga la siiya armiga askarta oo dhan soo leeyihiin marka meel ay ku gaajoon karaan ma hadna uu leeyahay in raasoo ugu helo oo xeerka ku jirtaa ta kale waxa dhacday in raadioga Bukaa uu sheegay in baashadeeda la sameeyay baashad kale ay sameeyeen Xasan Saciid Khayre shaqada security-ga wadanka taasna waxa weeyaan meelka dhac loo geysanayo mas'uuliyiinta dalka Xasan Saciid Khayre waa ninka qura ee dalka iyo geeska Afrika nabadeeda ilaaliya ninkii garan baa garanaya Xasan Saciid Khayre waa nin weyn oo maxay ahayd alla weyni macmum nin waxa weeyaan mas'uula reeso shushiyo iyo waxan wax ka weyn oo haya wax baashad yar iyo wax lagu soo hadal qaadana maaha marka taasna ku cadeynaysa in la tilmaansanayo ama la beegsanayo mas'uuliyiinta dalka kuwa u sarsareeya si loo niyad jabiyo ama si loo bahdilo oo shacbiga iyaga la isku horgeeyo marka service security group raahdo service security hawl weyn buu hayaa hawl nabadda ee dalka idilba iyo ka haya intii ilaa ka socdaysa maaha dad social media dhex meeraysanaya maaha dad wax yar la macniyo wada waa dad nabadda wadanka ilaalinaya qof kastoo wadaniyana waa waajib inuu ilaaliyo ammaanka dalkiisa
taasna waa xagga qof kastoo wadaniya xaq buu leeyahay inuu dhulkiisa ilaashado qof kastoo wadaniya xaq buu leeyahay inuu wuxuu doonayo dalkiisa ka helo laakiinse maaha in mas-uuliyiinta dalka kuwa u wanaagsan la beegsado la tilmaansado maaha marka waxaan leeyahay wararka aad dhegaysanina inta kale imika waxaan odhanayaa ururkan reer Al-Sabiix ee gaariga la siiyey samproolka ma tolnima lagu siiyey ma adeernima lagu siiyey maya maxaa siiyey shaqadii soo qabteen intaa cusubna la arkayay iyo doon in European u markhaati fureen dadka inay wadan yihiin ay dhabu shaqaysanayaan saasoo looga baahan yahay Djibouti waa exemplaire waa dadkii u horreeyay waa inaad saan noqotiin waa in dhulkiina jeclaatiin war cid bili-aadan cid ma xakunto intaa ku dhalato ku dhashay nasiibkaa siiyey adna nasiibka beribu ku siinde walaalkaa kana xelay ka xun kuwa xun iyo xusbigeena ku jira ama ku jira muxuu ahaa dowladda waa in la tilmaamo kaama sarreeyo xeer baa lagu tilmaamaa iyo nidaam baa jira ka soo qaad service baa xun serviceka arshi buu leeyahay haddaad fahmi weydiin dee si loo sheegay leedahay dalkana waa dal kala dambays leh waxaan kaga horeyna maanta geeskan Afrika waa maxay waa nabad baan ka iibinaa wax kala ma hayno wax soo saar mali laakiin waxaan kaga horeynaa nabadda iyo wax isku sheeg sidee wax isku sheegaa dee wixii jira xaggan calaykum assalaam amran aad baan kuu salaamaya salaan sare markaa waxaan ka hadlayay amranay wararka beenta ay sheegay askartii reer Djibouti ee Dumeera gaajoonaysa yiri 5 askarana way baxsadeen bishii labaad bay tiri intaasoo maxaa loo maqli waayay talabaad ciidanka jandarka sheegayso jandarku bulshooyinkiisa ma siiyo jidin eeqaya xagaa ka galeen bulshooyinka waxa bixiya marka ay dibad tagaan xitaa booliis intuu ku jiro koox dhaqmi baa isku yiraahdaa ita majorka laga bixiya lacagta iyo raashinkooda l'armée dire mais le gamin le surveille wax lagu safaada ma taasi taaba lagu qadamay ay garan waayeen marka wararkooda beentaan xagga ka fashilantay takalena waxay rabaan inay bahdilaan shir security-ga wadanka shir security-ga wadanku geeskan oo dhan buu nabadeeda ilaaliya waa odaru cadaaya maaha ku yaro yar suuqa oo la boodale ninkii markii imka khalaas u dhaceena gacanta ku qabtay dajiib waha hambal uu leeyahay ina felicitino uu leeyahay shaqo wanaagsan oo leeyahay nabadda dalkana ninkii dajiib waha markii la doonayay mucaaradku inay dalka gubaan marka laakiin waxaan leeyahay haddii aad rabtiin siyaasadda soo gala dadka mucaaradka ama dadka muwaadiniinta mucaarad kuwa sheeganayo dawladda garab joogsada oo dhinaciga kala joogsada oo ininku wax siiyay wax u qabta wax kala ururiya gacmoodiiba ku goostaan mucaarad wax la yiraahdo ma jiro waa dad hunguri u socda waa dad caroonaya dadka Djibouti jarka si tuuray waxay ka dhigayaan ninkii awrkii cirka arkay dameerkiisa jarka tuuray islaanta awrkii cirka arkay dameerkii jarka tuurtay ka dhigayaan dadkan marka aanu kuma dhigaysanayno idinkuna ha dhigaysanina leeyahay dadkani propaganda ay wadaan beenta ay wadaan dalka may kula joogaan marka horeysa waa may adiga dalka joogay sidii wax u maqli weeyday marka aday ku bahdilayaan reer Djibouti dhex fadhiya iyaa lagu bahdilaa laga dhigaya qof dhagoole ah oo gaas galoolo waxba u hayma warbadekeena meel kasta ma ku galaa meel kasta marna wasiir kasta meel kasta jeedna nin kasta oo qaldana waa qaldanta hawranaano idno ma bayado اختيار مالنا ودكين انت جوجنو نين كان دونو qalad sameeyba waxa la nabar joogso waa qaldan tahay
حدونا مغلي وين دي مدحوينها جري الوزارة تي نكي وحيو وحا هيسي لك هلا يو horta dadka wax u qabo haddaad doonaysa inaad horumar dadka gaarsiisid waa in iminka laga arko waa in dadka mucaaradku dad buu leeyahay baarti kasta dad buu leeyahay iminka baartiga BB dad buu leeyahay baarti way ka soo jiidan karaanoo waxaa la odhanayaa baartiga BB war waxa bani siisaa soo maaha gargaar inta bani siisaa oo inta loo shaqeysa maaha de annagu weli dawladda imkaan dawlad noqonaynaa nidaamkii wadana laakiin sida dadka tabaalaysan waan daweynaynaa hay'adahan u yeedhaynaa wax daweeya dhulka wax ka soo qaadaynaa dadkii wax ka gubteen ama dhibaato haysato gargaaraynaa baa odhanaysaa adoo magacaagii mucaaradka ama baartigaagii ku gargaaraya shacbiga reer Jabuuti adoo shalay wax u qabtay marka lagu arko dadku way ku raacayaan waa la kala jiitaa caalamka baarti kastaba dadkiisii horta wax u qabtaa priority-ga siiya ما فهمت مركا مانتا يانتو هرمك هوري قالي واجي هوري واحد بقى واحد لو قبتين من القبيل تاع قبيل ما كان يرضانا لما تجدو 4.5 بلو قبتها مالكست وواحد كل جرت كونستيتيون لكن سي قبيل بقى ماشي أبود أقول ما سعوته وقرض ما كان يقولي والله قلت هوري كرانيك madaxweynuhu tuuri karaa ku doono sababtoo ah ashkatiisu badaltahooda laga saaraya marka wax weeyaan wararka kurteeniga ee beenta ah iyo social media laga dhex meeraysanaya hal joojiyo example waxa ku ah maanta hadii aad oran lahayd qabyaalad baa la isku siiyaa ururka dhalinyarada ah ee shaqadooda ka soo bilaabay nadaafadda wadanka gobolka Al-Sabiix iyaga oo hoosta ka soo bilaabay sidii u shaqeynayeen kolba gargaariga kolba wax ay u helayeen kolba wax lagu biirinayay markay joogsan weyday shaqadoodii ee la arkay wadanimo dhab inay yihiin wax gaadhi la siiyay ku shaqo adeegan برينا واحد كله كوين بالاسين دي بقوا بس يو قلمان دي يكا جاري واحد كروين الردي دلك أما قبل هذا كله ورسيدا دلك أو كلا نقض أو بلددال وحقبته دولت من اللي يجيني إنك وحقبسن ألوكر لي حد دولت لقي هذين قرين الدمان وكانوا تاريخ وصامري ما كلا فريسيني تاريخ دار بلاد سي مردي وحلو فريسيني وحلو فريسي وحارم بالله شيء ما كان قبل عامنا waxaan u maqaadfana in laga gardaraya deegtaarkeeda cadna waxa ka leenahay warka joogso waxa ku jirta baan leenahay dadka malaha raba in ay samcadda wadanka ka dilaan haddii wadani tahay waa in gabadha aad baa ku salaamaya saaxiibkay waa inaad gabadha si u dhaqsaha badan aad ugu soo celiso shaqadeedii haddii aad wadani tahay weyn haddii kalena de wadani ma tihido de waxa tahay kuwii magaca naga dilayay ee shardarad nagu sameynayay ee awood ku isticmaalayay shaqaalaha meesha loo dhiibo برينا وقتبيننا وكعب عامسين عنك كعب عامسينه وانقصوش إن حوله برجبني كاتي إذا عاد لو ديبي نيو ناكسن معها نين هوركرو ويير معها وانسيف لبوده واندتك قفكي هذا فريسين يعرضنا مدحوننا ماكو مغلوركا ساندرو فريسين ماشي معها مال أقل الذي ما وقرأ شقاء تتن بينه شقيس اللي قرأ كنا وشقيس بالجودي لو مديبين حفرت الله ده فيديو محوها أنا ماشي لو مديبين يدد أيرد لو مديبين هرمرك بدك الجودي شغالها هنا بيرسيت بالجودي ماشي أو بجي سو جلسي ولا قال سو جلسي وكركع كوسمي شغالها بدك واحد جاء نقولك هالدينا سحر برا بعد عي حق الراشين كا سحر برا كحق السكرت وكذا عي وليله جوان كسكرت سديت كم بالله راشين كا سود الجينية أما كنترول أي واحد كلنا هاي ولا الله في رصاده وذلك الله إلى اليونان كيسة تعريف كيسة سيدو مدحونه الشاقي وحل السوق يوم ذلك النفوس شاقع مدحونها اسماعيل المركلي إنه حسوق قرام بريبة فهم الدونتين مدحوني اسماعيل المركلي إنه جيسيها بريبة فهم الدونتين
shalay ninkii iliibuha war ala naaquso raashinka oo dhulka loo dhigo shacbiga reer Djibouti maanta markuu socdayna waa la yar dalacay sokortii alaabtii laakiin markuu isagu imaado imika uu maqlo warka wala soo hadda xooran doona war maxaa dhacay raashinka dhulka galiya waa la gelin geesiga noo jooga iyo dadka rabaan dad qaar inay bahdilaan inay sharafka dilaan inay ka dhigaan nin muxuu ahaa xun waa nin awliyaa ilaahay noo doortay annaguna aan dooranay ilaahay aanu day madaxweynaheena marwada koobaad xukuumad soo dhan tahay waxaan leenahay annagu waan wala jecelnahay reer Djibouti haddaan nahay oonan Djibouti baan walaal ku nahay wasaaradda shaqa dadka ku xunna waan iska qabanaynaa idankoo hambalyeynayna wasaaradaha xoog u shaqeeya dalka imise wasaaradda jeeneska iba muumin casuube waxay samaysay ahayd bondaan alfasijuwaanki mid loo dabaaldegin tuurneeye aad u fara badan oo Djibouti ka dhicin weligeed yaa ka dhacay oo saaba loo soo duuray tuurnee ilaa bilbila ilaa hijada meel kasta ayaa laga heesayay shanteeradii dhalinyarteereedo majaajilo matalaysa waa horumarkan soo gaadhiyeen marka dad tacliin leh waddanka soo galaan horumar baa la galaa activity aan lahaan jirin baan yeelan alxamdulilah weeyaan dalku waa nabad ciidankuna uu ku kalsoon yahay madaxdooda shacbiguna dowladooda ku kalsoon yihiin laakiin waxa loo baahan yahay dadaal in la yimaado oo ururaduna ay shaqeeyaan baa loo baahan yahay urur baan noo magac inta la qaato lala faseexdo oo marka movement ama dhaqaaqay jiro oo la soo baxo faa'iido ma leh adiga dalkaaga khayimay maxaad ku kala ka sheegay waxa soo dhan baan haystaa minka dad baa warar been dibadda ka sheegay sida sanbaa jirta war dalkaagu xaq buu leeyahay inaad waxa doonaysa sheegayso saabaan hay tiraahdo wixii la karayna waa lagu siin wixii la karayna lama karayo taan loo gaado weyn ninna meesha maray dadka waa wala shaqaale gibi shaqaale weyn dadka oo dhan waa wala shaqaynaya ay loo shaqaynaya calanka loo shaqaynaya taa waa in fahanti qabyaalada lagu soo galay waxa iska tuur walow kana adeerkan ha noqdo adeerka shalay uu yaqaan كمو لكن عيد هذا وحبيوتي وحالك دول كاغا عيد هذا يعلن كاغا ذلك النبض اللي ويل علينا وواجب إذا كنا وفرس وأهرية النبض إلى علينا جامل كوجنا انتظروا النوع سيو إذا أوجه الرسالة ما كان dadka isku kala jawaab kale inaan dhageysano maaha dad baa inta ku farxayo oo ka hela in la bahdilo dalka jamhuuriyadda Djibouti laakiin saamaanku waxaas ma ka bilaaranahay waxaan u sheegaynaa dalkeenu in uu yahay dal la kala dambeyn leh dadkiisuna jecel yihiin qoomiyad ka sinale had waxa naga maqan isfahanka baa naga maqan haddii la isfahmi lahaa maraykanka waxa kama dhacneen saas kugu xiranahay waa la yaabin yahay madaxweynaheena ilaahay iska daayay dhinac kasta laga yimid xaggan baa laga yimid si loo burburiyo dalkeena markaana macdinteena loo gurto waa la kari leeyahay waa isaga waxaa naga horjooga marka waxaan noo samaystay idaacado shisheeye oo dalal shisheeye la geeyey oo xumahaagan ka sheekeynaya wanaagaagana aan ka sheekeynin imisa wanaag la qabtay imisa dad horumar gaaray oo shalay waxba haysan waa biyadu waa wareegto waxa weeyaan shalay imisa taanjiriin ahayd maanta masaakiin ah imisa shalay masaakiin ahayd maanta taanjiriin ah waxaan ilaahay baa qoraa مكتوب من السماء وهي حاجة السماء كتب عندها لكن نسكت عينه وهي واجب إذن إذا حما يسوع الله مصدق بحر البوق هي لكن سه وإن جعلاتي وقلبي في جعلاتي قفك ورالت هاي كله إنه وراله وكسام سكوب نهي أنت أصوغ لني أنت بهاي
madaxdiina u sarsaraysa dalkuna ilaahay iska daayo chef de sécurité xasan siciid khayre waa ninkii marka buuq u bilaamay xitaa wadaadadu ka hadli waayeen ninkii gacan bira ku qabtay weeyaan soo dalka nabad uga dhigi lahaa geesi weeyaan hambalyaan leenahay hore u socon leenahay wixii dalka halis gelinayena gacan bira ku qabaan leenahay anaguna kusoo tilmaamayna ku doonada ha noqdo xeerka nina kama sarreeyo xeerka waddanka u sarreeya taa waa in la garto saa in la ogaado loo baahan yahay noo sii shaargareeya si ay u gaadhaan dadkii xumaha iyo beenta waday in aan warkoogii aan soo helnay inay rabeen inay isku diraan shacbiga reer Jabuuti askarta iyo mas-uuliyiintooda shacbigana khalkhal geliyaan ay yidhaahdeen raggiina ilaalinayay baa maanta gaajoonaya waa waxyaalo aan dhici karin waa waxyaalo sharaf dari ku ah dowladda Jabuuti waa waxyaalo sharaf dari ku ah marka la maqlo shacbiga reer Jabuuti waa waxyaalo sharaf dari ku ah sargaalada ciidanka reer Jabuuti ama askarta Jabuuti marka aanu kitaabaan waan ku diidinaa bale waan ku diidnay waxa aqbali karnaa maaha weligeedna kama dhicin horena waa loo sheegay le gamel l'armée dure le gamel le sûr l'armée bu adigay la xisab intaysu waa lama horaan xiiso dhawaasiyo talabaad ciidanka marka la isku geeyo ay front joogaana waxa xukuma militariga xukuma chef de corps militaire ka xukuma ee gendarme xukuma ma jiro xagga waa lala waayay taa ku fahmay rag badan ma soo wareystay warar sab ay raatan lahayn weeyaan rag xogaala yaa iyo ramay soo weydiiyay su'aalaha markii aan maqlay laakiin si waxaan soo ogaaday dhabti iyo in siyaasad laga dayayo arrimaha soo maray shacbiga reer Jabuuti waxa loo baahan inay ka aqliyeystaan inay dadaalaan inay gacmo isqabsadaan shacbiga reer Jabuuti hawshu taalaay qof dibad jooga hawl ma taalo taa waa in la garto qof dibad jooga hawshu ma taalo hawshu inaka noo taala nin heer ka sareeyana ma jiro nin walba xaq wuxuu leeyahay waa uu helaya hadduu alla yiraahdo waxa weeye laakiinse calooshaada lagu helay calooshiina hagaajiyaan kale reer Jabuuti sidaad ahaan jirteen daaleezaanigi katrantuidkii trandiiskii ku soo noqda kale oo foolxumadan iyo xantan iyo ceebtan iyo waxaan oo dhan joojiya caloolxumada iyo xaasidnimada horumarku waxa lagu gaar leeyahay xaasidka marka isticlaadaan leeyahay sidii isku jeclaayeen dadkeenii hore jaarkii hore dadkii garanayeen baa garanayay sida hayeen waa la garanayaa sidii wax loo heli jirayna waa la garanayaa waagaasoo laga mishaari jiraa mishaarada maanta waagaasoo maxay ahayd dhuka badow ahayd maanta dhulku ilbaxayna ka daranday ka war imada da'na noqonahay le problème waa shacabkiiba xasad isku wada noqday isku wada xaasidaya dadkii waxba isku ogoleyn waxaa jiray istaageersigii wax wada cunkii wixii dhan baabaabay marka horumarka saa lagu helaa in dawladna keligeed waxa ma qabato gacanta farta keligeed isma meelayso shantaaba caawinaysa afartaa kale ساينا نقولنا له بهني ورك على سبيل ونحملين يا مر لبادي مر صدحات يك أو إكزامبلر ونقضي أما صار ونقضي الشعب جري جيبوتي أما الرضا كي جيبوتي نحن يا سليمان الميو جو روس عو إن شاء الله آخر بني رجينيا إن بعد ركن حسين عبد الراجي وضيق محي هاد بسكيلة ده تصميم كبيرة تاني يرتع على السبيل يهولو يدخل يدخل عرتا يوعي مولد يهوكي يالكسو قادا كاس محمود سمينيا wuxuu isku tolayaa shacbigii gobolada dhalinyartoodii uu isbarayaa wuxuu sameynayaa oo kale in droogii ka hortagayaa in isaga oo qaatay hadaladii madaxweynuhu oran jiray wax sameeya dadaala ma kula taraad galafsan adraagi taa uu sameeyay kubda masajwaanka uu dhigay waxa ay garab joogsaday maxamed jaamac ducaali korneel wacays Usama yalla garab joogsaday waxa kale garab joogsaday muxuu ahaa rag kale oo badan aad fara badan
isaga ay garab joogaan maamulayaasha maxay ahayd rifiyada ama konseqojonaalada Cali Sabiix Dikhil iyo Carta isaga ay garab joogaan dhakhaatiirta Cali Sabiix waxaan ugu hambalyeynaa directorka Cali Sabiix oo isagu garab weyn siiyay runtaada Madiina marka ninkan waxa hore gaarsiiyay garab joogsaday markuu dadaalka bilaabay rag kale oo fara badan isagoo hambalyeynaya dibitiga Cali Sabiix iyo Jawhar iyo wuxuu leeyahay jiro uu jooga say garab joogsateen marka ninkaasna waa inaan garab joogsano haddii la yiraahdo sabtida wuxuu bilaabayaa tartankii baskilida isagoo hambalyeynayna marka ragga meesha jooga maxay ahayd mas'uuliyiinta dalka jooga waxaan ka leenahay waa inaad shacbiga eegtiin maashi ma joogtiin jeebadihiina uma joogtiin faamiyiina waxa u joogtiin qaranka shacbiga reer Djibouti in hoos loo eego ayaa loo baahan yahay ninka hoos u eegi waayena waxaan ballan ku qaadaynaa madaxweyne Ismaaciil Margeele markuu soo noqdo inuu isbedel sameyn doono rag badan uu bedeli doono markuu bedelina hadhow waxaan u sheegaynaa shacbiga reer Djibouti inay oran ragga qabyaalad baa lagu bedeliyo waxba lagu bedelay inay oran waa ina shacbiga reer Djibouti maskaxda yeelisiin u fahantiin in loo bedelay ninkan hawlkar buu noqon waayay ama qabyaalist buu noqday ama shacbigii ba ka cawday ay meesha ay u fadhiyaa shacbiga reer Djibouti u fadhiyaa haddii shacbigan jirin meesha ma fadhiyeen lacagta ma qaateen directorka cadda waxa ku celinaa mar labaad directorkeeda cadda waxa ku celinaynaa gabadha soo celi gabadha waxba loogu daraa weli gabadh lama eriyaal gabadh haddii cabataa waa loo beeriyaa nin hadduu cawdana waa laga gooyaa bay ahaan jirtay waa dhaqanka Soomaaliyeed gabadh haddii cawdato waa loo beerin jiray wiil hadduu cawdana waa laga gooyin jiray directorkeeda cadda waxaan ka leeyahay dhaqankii Soomaalida waa ka tagtay marka